madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ka haray tartanka doorashada madaxtinimada Soomaaliya sida ay wareedyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen TV-ga NTN. xogtaan helnay ayaa sheegaysa in Guuleed uu u tanaasulay isla markaana taageeray hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ay ka soo wada jeedaan beesha Habargidir. talaabada uu qaaday Guuleed ayaa ku timid cadaadis xooggan oo kaga yimid madaxweynaha galmudug Axmed Qoorqoor, siyaasiyiin iyo ganacsato ka soo jeeda beesha Habargidir iyo xaqiiqda ah in ololihiisa doorasho uu ahaa mid aan saldhig adag lahayn. kulanka uu ku dhacay tanaasulka ayaa waxa goobjoog ka ahaa Cabdikariin Guuleed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Axmed Qoorqoor, Senator Cabdi Qaybdiid iyo 3 xildhibaan oo kale oo ka soo jeeda beesha Habargidir. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal uu soo saaray kadib kulanka ku yiri: waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Cabdikariin xuseen Guuleed oo ii tanaasulay si guul loogu keeno tartanka doorashada madaxtinimada. waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye, xildhibaanada, senatarada, odayaasha, siyaasiyiinta iyo ganacsatada hawshaasi qaybta ka ahaa. Guuleed ayaa lagu waramayaa in tanaasulka ka soo kow hadda si xoogan ugu shaqeyn doono sidii uu taageero ugu raadin lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isaga naftiisa rajadiisu aysan sidaasi u weyneyn. musharaxiinta ugu cadcad doorashada ayaa la rumaysan yahay inay kala yihiin Farmaajo, Sheekh Shariif, Xasan Sheekh, Siciid Dani iyo Xasan Cali Qeere. mana cadda haddii tanaasulka Guuleed uu taasi wax ka bedeli doono sarana u soo qaadi doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur. sida ay fahansan tahay NTN TV, isbahaysiga Guuleed iyo Cabdiraxmaan ayaa waxaa inta badan qayb ka ahayn xildhibaanada beesha Habargidir oo badankooda ah lafdhabarta ololaha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh, waxayna ka maqnaayeen inta badan kulankii xalay. si kastaba tanaasulka Guuleed wuxuu tusaale u noqon doonaa musharaxiin badan oo aan rajo ka lahayn balse caqabad ku noqon kara fursadaha musharaxiinta ku beesha ah, si gaar ahna kuwa beesha Abgaal. beesha Abgaal ayaa ah tan ugu musharaxiinta badan balse waxaa la rumaysan yahay inaysan intooda badan rajo lahayn marka laga reebo labadii madaxweyne ee hore ee Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed.